kulan ay soo qaban qaabiyeen aqoon-yahanka ardayda kulliyadda cilmiga bulshada iyo xafiiska cilmi baarista iyo daraasaadka ee jaamacadda Boosaaso faraceeda magaalada Boosaaso ayaa caawa ka qabsoomay holka weyn ee jaamacadda. Halkudhiga kulanka ayaa ahaa maxaan ka baran karnaa doorashooyinkii horudhaca ahaa ee ka dhacay qayb ka mid ah degmooyinka Puntland. ugu horeyn gudoomiyaha guud ee jaamacadda Boosaaso Dr. Maxamuud Sheekh Cusmaan Diyeesh ayaa si waafi ah martida ugu soo dhaweeyay jaamacadda Boosaaso. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لمان أرضيدا يمرت شرفتا كسوق بقلياش برنامج كان أرضيدا سواء سنتي برنامج كان وحيث كود السلام يا دمانتي سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب وحني ذو كل دردار ميا برنامج كان وإسلام هاي ardayda wuxuu yahay muhiim wuxuu furfurayaa maskaxda ardayda waxay fahmayaan wacyiga iyo xaaladda taagan waxaan rajaynayaa barnaamijka inaad ka faa'iidaysataan dadka martida idin ah ee jaamacadda timidne ha ku ixtiraamtaan dhagaysiga la socodka ka faa'iidaysiga mar labaad waxaan u mahadcelinayaa ardaydii soo qaban qaabisay barnaamijkan iyo macadka galool oo garab taagnaa kalana shaqeeyay ardayda social science-ka iyo gudiyada ardayda ay leeyihiin ee jaamacadda Boosaaso barnaamijka inaad idiin furo kaliya iyo ujeedkayga ahaa barnaamijkan uu noo furan yahay marti sharaftana waa soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada jaamacadda Boosaaso qaybteeda magaalada Boosaaso ardaydane waxaan kula dardaarmayaa ka faa'iidaysiga barnaamijka iyo ka qayb qaadashadiisaba mar labaad yaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa kulankan marti ku ahaa mas'uuliyiin ay ka mid yihiin duqii hore ee degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan xoghayaha arrimaha dibadda urur siyaasadeed ka miday Liibaan Axmed Shire gudoomiyaha urur siyaasadeedka dhalinyarada Cabdiraxmaan Muumin Saal gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Tabake gobolka Bari Maxamed Cabdullaahi Khuur aasaasaha madasha saadaalinta siyaasadda Soomaaliya aqoon-yahan Cabdullaahi Ruba mas'uuliyiinta ayaa hadallo dhiirigelin ah goobta ka jeediyay kana warbixiyay halka ay marayaan doorashooyinka Puntland. soo qayb gashay kulankan muhiimka ah aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana salaamayaa iyo dhammaan soo qaybgalayaasha ardayda iyo marti sharafta kale barnaamijkan aadka u muhiimka ka soo qayb gashay barnaamijkan waxa aad iyo aad waqti badan u geliyay kulliyadda social science-ka gaar ahaan ururkooda ama guddigooda ay leeyihiin oo la yiraahdo FOSA oo ka kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee faculty-gaasi ka kooban tahay waxaan ugu talagalnay barnaamijkan in aan kaga jawaabno su'aalo aad muhiim u ah dadka maskaxdooda ka guuxaya oo ah barnaamijka dimuqraadiyiinta ama barnaamijkan doorashadii aan qabanay la qabtay saddex degmo ka dhacday maxaa laga baran karaa su'aalaha la rabo marka in caawi aan ka faa'iideysano banalka aan ka jawaabayaa saddex waqti Puntland markii la aasaasay ugu horeyntii waxyaabo lagu heshiiyay waxa ka mid ahayd in 3 sano asaaskeedii kadib lagu hirgeliyo nidaamka axsaabta badan balse maysan suurto gelin waqti badan bayna qaadatay ugu horeyntii madaxweyne isku dayay wuxuu ahaa mudane Cabdiraxmaan Faroole waxayna ahayd nidaamka dimuqraadiga markii ugu horeysay la bilaabo December 2002 ama 2012 dhamaadkiisii baa la bilaabay nidaamka doorashooyinka Puntland ee dawladda Faroole wuxuu soo maray halbeegyo badan iyo qaybo kala duwan oo badan markaan ku bilaabo bilowgii tibik magacaabideeda waxa la aasaasay July 2011 sidoo kale 15 ilaa 18 Abriil 2002 waxa la ansixiyay dastuurkii Puntland ee qabiil qoraalka ahaa iyadoo madaxweynaha madaxweynaha laga dhigay muddo 5 sano ah taas laftirkeeda sidoo kale duqii hore ee degmada Boosaaso ayaa aqoon-yahanka kulanka ka soo qayb galay oo soo jeediyay inay qayb buuxda ka noqdaan horumarka iyo isbeddelka ballaaran ee ka socda Puntland. dhammaan soo qaybgalayaasha munaasabadda tan ugu horeeyo gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso gudoomiyaha ururka dhalinyarada reer Puntland
urur siyaasadeedka dhalinyarada xogayaha arrimaha dibadda ee ururka mideeye urur siyaasadeedka mideeye gudoomiyaha TBIC ee gobolka Bari iyo dhammaan soo qaybgalayaasha qaybaheeda kala duwan idin ahaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddii aan saaxiibkay xiriiryaha la kaftamo haddee labada daqiiqo saddex daqiiqo iska ogolahay ninkii gudoomiye dhan buu ahaay gudoomiye urur siyaasadeed weeye labada daqiiqo waa qaadanaya aad baan mar labaad waxaan uga mahad celinayaa waxaan rabaa inaan markaa intaanan guda gelin mawduucii ama labadii su'aalood la weydiiyay aan uga mahad celiyo jaamacadda Boosaaso gaar ahaan kulliyadda socialka oo runtii barnaamijkan nagu casuntay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baad iyo aad baad u mahadsantihiin sharaf bay noo tahay inaan kulankan kala soo qayb galno fikirkaygana aan ka dhiibano intaa kadib runtii waa su'aal isweydiin mudan haddii mar dadkii loo guuray dimuqraadiyad waa su'aal isweydiin mudan ma laga gudbi karaa qabiilkii iyo awood qaybsigii qabiilka jawaabtu waxa weeye haa waa laga gudbi karaa waxa daliil u ah doorashadii noo qabsoontay oo ugu horeysay saddex degmo ka qabsoontay waxyaalihii isbedelka ahaa oo ka dhacay waxyaalihii saameynta lahaa oo saameynta ku yeelay bulshada qaybaheeda kala duwan aan markaa waxaan qabaa raa'iyan waa laga gudbi karaa qabiilka runtii qabiilkan inta badan hadda muddooyinkii dhowr 20 sano ugu dambeeyay isticmaalaynay wax dastuur ku qoran ma ahayn wuxuu ahaa wax xal loo mooday oo lagu gaarayay inta lagaga baxayo ama inta la gaarayo dimuqraadiyad rasmi ah waxaad wax la sii qaatay in sida wax loogu sii qaybsado institutionkii iyo maamulkii uu soo dhisnaado ugu dambeyn aqoon-yahanka iyo mas'uuliyiinta ayaa isweydaarsaday su'aalo la xiriira arrimaha doorashooyinka Puntland Awil Yusuf Ciise Sahal Cable TV